haweeney Faransiis ah ayaa wiilkeeda oo 14 jir ah geysay xarun islaami ah si uu soo islaamo. wiilkii markii uu xaruntii soo gaaray ayuu u galay imaamkii xarunta wuxuuna ku yiri hooyaday waxay ku dhahday iga caawi inaan soo islaamo. imaamkii wuxuu weydiiyay wiilkii ma rabtaa inaad soo islaamto adiga? wuxuu yiri kumaanan fikirin taas, laakiin hooyaday ayaa rabta inaan islaamka qaato. imaamkii oo yaaban jawaabta wiilka ayaa ku dhahay hooyadaa ma muslim baa? wiilkii ayaa ku jawaabay maya, mana aqaano sababta ay u rabto inaan soo islaamo. imaamkii wuxuu ku dhahay hooyadaa aaway? wuxuu yiri way ila jirtaa, haatanna masaajidka banaankiisa ayay joogtaa. imaamkii wuxuu dhahay tag oo ii keen hooyadaa, waan la kulmayaa. wiilkii wuu baxay, hooyadiis ayuuna u soo yeeray. imaamkii haweeneydii wuxuu ku dhahay marunbaa waxa aan wiilkaaga ka maqlay inaadan muslim ahayn oo aad doonayso inuu soo islaamo. waxay tiri haa, waa sax. imaamkii oo la yaaban jawaabta haweeneyda ayaa ku yiri sabab? laakiin waxay tiri sababtoo ah waxaan ku noolahay guri ku yaala Paris, aqal horteyda ahna waxaa degan haweeney muslim ah. waxay haysataa 2 wiil oo dhigta jaamacad. subax walba iyo fiid kasta waxaan daawadaa 2 wiil marka ay ka soo baxayaan guriga iyo marka ay ku soo noqonayaan. waxayna ka dhunkanayaan hooyadood madaxa iyo gacanta, waxayna ula dhaqmayaan si ixtiraam mudan. markaas baan jeclaystay inuu wiilkayga sidaas oo kale noqdo, diintana qaato, si markii aan duqoobo oo ii daryeelo uusan igu tuurin meelaha dadka da'da ah, kadibna dawladda ay kafaalo qaado. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال.